السلام عليكم أصحابي ومركلة إيه ولالكينا هادنا waxaan hayaa akhbaar cusub oo ku saabsan taxanihii Ashraf Ruyaa ama hay'adii Ashraf haddii aad ka mid tahay dadka taxanahaani dartiisa janaalkan u imaaday marba taa meeshan imaaday maxaa suusaa muuqaalka lagta saar sii share garee shaqaysay intaan kadib aan wax lagu sheegin aan u sii gudgalna muuqaalkeena marka waxaa la ogaaday in Nissan ay tahay xadgudbiyaha ama qofka u shaqeeya booliska oo xogta ka soo qaadaya burcada una gudbinaya booliska ama sirdoon bas u taqaaniin jaajo saxtaas ka dhaha qoraaga sida dargelin leh ayuu ugu wada sheekada laba qayb gudahooda waxaa laga yaabaa in Ruyaa xitaa soo baxdo Ashraf dhabaantii wuxuu ogaa doonaa in Ruyaa ay tahay Nissan sidoo kale aadan ka ilowin taxna waxa ku soo biiray cadow kale oo cusub kadib kabixitaankii doorkii Danger hadda waxaa si weyn ugu muuqan doona Olu Yashar waxa uu noqon doonaa cadow cusub oo soo baxa Ashraf Taag waxaan xiriir leeyahay ihtiyaar ama odayga ee waqtiga labada xablo Turkiga ka soo arka idinku gamaacadi waaye sidoo kale jileenka ama jilitaanka Orol Baba Oglu waxa musal ku siiyay mid aad u xamaasad badan hadda markorta aynu ma isla dhigno faafahinta ihtiyaar ama odayga yuu yahay yana matali doona jalaaga yani yuu noqon doona jalaaga matalay doorkan waa mid sida aad ku weyn loo xiiseenayo qof walbana uu doonayo hadda inuu ogaado jalaaga lafant oo ku jiro taxnaha Ashraf Taag kaas oo matalaya inuu aabo yahay waa mid ka raadinaya yani wiilashiisa waxa uu nagu shaqsanay labadaas wiil inuu mid ka mid ah wiilkiisa oo ah Ashraf iyo Qadiir kulli magaciisa adinkan iga raba aniga ma sheegayo dhanka komitigaas ka keenahay asiga ayaa wuxuu bixiyay wareysi waliba mid qarsoodi ah warbaahintan markii ay wareysigiisa dhageysatay hadda kulli wareysiga la hadalhayo oo warwareegayo waa in uusan ihtiyaar ahayn jalaabanka ka imaan doono uu yahay mid gudaha ku jira waliba door hore taxanaha ugu jiray oo si degdeg ah baxay isla markaan dadka dhan waxa indhaha ku wada qabteen oo indhaha wada saareen jilaa kamid ah jilaayaashii oo si degdeg uga baxay waliba si shaqadiisa dhamaanin jilaagaasina waa Sardaar Amiir adiga kulli doorkan ma la socotay ma ka warqabta karto oo ka baxay maxaad isleedahay ma dhabaatan arintan ma dhabay noqon doontaa oo ihtiyaar ama odayga waxa matali doona Sardaar Amiir isla wajigan aad arkaysaan sidoo sheekada ugu baxan haddii aad xasuusato waxaad nagu reebi kartaa dhanka komitiga inta ka kulmeen muuqaalkiisa xiga waxaad in leeyahay sidaas ay nabadgeliyo